الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. halkan waxaan ka salaamayaa tolka samanaha bokor dhammaan meel kasta uu joogo dibad iyo gudo magacay kulliday wax laga yaabaa inaan ku garan waa Yaasiin Axmed Cawaale waxaanu joognaa dalka Kenya magaalo la yiraahdo Nanyuki oo ka tirsan waqooyi ka xigta Nairobi 200 kilomitir siyaalay iyo Nairobi u dhaxaysa markaas saaka waxaanu halkan ku kulanay alxamdulillah nimankii loo jiray waa maqli jirteen kulli in badan baad maqli jirteen reendiinle nimanka la yiraahdo oo samanaha bokora reendiinle hadaan soo qaadno marka hore reendiinle dee waa dad fara badan oo nooc walba leh isaga oo dhan ka kooban laakiin dhul fogna degan oo ilaa 450 kilomitir Nairobi u jirta marka ayaamahan ba xiriir aanu sameynay dabadii waxaa noo suura gashay inay iyaguna soo safraan oo safar dheer oo ilaa 250 kilomitir soo galaan annaguna safar ilaa 200 kilomitir aanu soo gallo saaka alxamdulillah waxaa noo suura gashay inaanu ku kulanno magaalada Nanyuki 7 xubnood oo ka soo kicitimay magaalada la yiraahdo magaceedu maxay ahayd Lisamis lixda xubnood waxay kala yihiin محمد حسن لقاوة لكولا وواحد موسى سمنات موسى لنقاري وكاواني سمنات خديشة بابون سمان وهيد كلها مقالدة دولتي وكيلو كتاي مقالدة وهي قالنوغلي galmoogle malab galmoogle malab ani ka weey marka waxa weey alxamdulillah si fiican baan soo wareysanay aad iyo aad baan u sheegay maamadan khadija sahra xasan sahra xasan waxay dhashay khadija hooyadeed weey marka alxamdulillah aad iyo aad baan markaan soo wareysanay warkii waa kala sanay dhamaan way soo wareysanay waxay noo sheegeen inay isas aad iyo aad u fara badan magaalooyinka ay kala degan yihiin dhowr magaalana ay degan yihiin magaalada la yiraahdo Kargi waxa degan bay yiraahdeen 3 qoys magaalada la yiraahdo Lablogo waxa degan bay yiraahdeen 5 qoys magaalada la yiraahdo Lisamis waxa degan bay yiraahdeen 9 qoys magaalada la yiraahdo Marile waxa jooga bay yiraahdeen 3 qoys magaalada Karare waxa jooga 2 qoys magaalada Digil waxa jooga 6 qoys magaalada la yiraahdo Samburu waxa jooga 4 qoys adigu dadka waxay sheegeen ilaa dad gaaraya ilaa 500 oo family inay noqonayaan tiro guud inta ay diiso warayaan dadku aad isuma wada yaqaano marka qabiilkana waxa weeye dee samanu beeganay waa dad kulay dee odayaashii hore waaweynaa ee taariikhda hayay kulay dee wax badan kama noolasay noo sheegeen waqti xiriiriyo jiilaalna waa lagu jiraa bay yiraahdeen dadkii uu soo wada bixi kari waayay inta yadaas ay soo xalqaano maanta idin soo baxnay bay yiraahdeen maadaama dee tolkii dee aanu family ahayn aanu haybtiisa maqli jiray noo yeeray waxay noqotay inaanu ajiibno marka inta yadaas ay soo xilqaanay oo soo baxay dadkii ka dad badan waa ku iman kari lahayn waxa weeye waa soo bixi kar weynay bay yiraahdeen sida daraadeed aad iyo aad waxay u hambalyeynayaan tolka soo rarsanay dee xaqna warbixinteedii aanu siinay waxaanu ku ballanay insha Allah taala dee xiriir hor leh oo maanta maanta ka bilowday inaanu sameeyno macaamilkii hore halka aanu ka xidhnay xiriirkii koobaad kabacdina waxa weeye haday suura gasho waqtiyada ay haboonaato ama xaqan odayaal ha ka yimaadaan oo xaqaa ha yimaadaan oo la soo qorsheeyo ama xaqaa cid ha ka timaado deegaanada iyo waxa weeye hadhow marka la yimaado dad odayaal inta la soo diro family dhulka uu joogo dee halkan waa meel ergoon oo aanu sugunimo aanu ku kulanay maanta waa meel aan ku ballanay si fiican la isu dhaxgalo oo waxa weeye la isu warsado saasaanu markaa ku ballanay marka alxamdulillah aad iyo aad bay u faraxsan yihiin aad bay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad bay moraalkoodu u wanaagsan yahay tolkii u horeeyay waqooyi lagu sheegayo maanta aanu aragnay horaantiisii insha Allah waxay naga aqbaleen in xiriirku halka ka sii bilowdo oo waxa weeye la isu socdo hadii Ilaahay ka dhigo iyana waqtiyada kamid ah insha Allah ay wafti odayaal soo diri doonaan waxa weeye wixii dhiman haday laynka tahay waxa weeye
qaybta in badan waxba ka garan mayso magaca guudun bay maqlaan Cabdalla Samane iyo Muuse Samane waanu magaca waanu maqalay bay yiraahdeen labadaasayna kulli u qaybsan yihiin Muuse Samane aad waliba magaciisa u hayaan sidaa daraadeed waxay kulli wax badan ka garanay magacooduna waa magacyo luqad kala ah oo aynan aad u wada fahmaynin sidaa aan labada magaco qura uga soo qaadanay baa ka sala marka waxay jecel yihiin iyaguna halkan tolkood inay ka salaamaan oo waxa weeye ka hambaliyeeyaan waxaan ku soo dhaweynayaa si uu tolkii u salaamo salaan haguulada waa maasantiin ku celi mar laba لو قبضنا حق عندنا لا طلع حق النعي نيجو كجرا مرتيتو انت كله مقع ياسين يشو محمد يتول دقيس خبنا نبين مية يتول دقيس راسونا خدنا بعدين كل جانب حق النعوني ما شاء الله يا بي وفرح سيهين شوي وقعد بمقينها كل ده متكوبن بنشوفي نيروبي لقد ولسه في عام ما برا واحد مدين تان قرنا ينيرة دافتي مركب وحن بكل مهمة دوية إن شوي معانا وفرح سنة يكون شران إن قعد ناس حنبلينا يريد أنو يرني سيدا سيد مركب كل كنا كل سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته